الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa maanta halka inaan baaq nabadeed uga jeediyo dhawaan dadkii ay shaqaqooyin ku dhaxmareen gobolka Mudug galkacayo taasoo aad moodo in aadna loo buunbuuniyay waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadweynaha ku nool labada dhinac waxa waa nabadgelyada waxay wax ku yihiin waa nabadgelyada run ahaantiina waxaan leeyahay cid kasta oo arintaas siyaasadeynaysa waxaan rajaynayaa inay kala gartaan waxa siyaasadeynta u baahan iyo waxa u baahan inaan la siyaasadeyn amuurta halka ka jirta gaalkacayo waxa ay dhaxtaa la wiiliya abtigi iyo wiiliya awoogi waa dad usra oo isku soo noqnoqonaya dadkaas maanta colaada laga dhaxurinaya waxaan leeyahay colaad ha idinku filaato tii 91 in dhex martay intii ka dambeysay waxa laga soo doogsanayay wixii dawladii dhaxintay meesha ka baxday dadkaas dhibaatooyin oo gaaray waxa la sameystay maamulo waxa ay dadku filayeen inay hore ugu kacaan oo ay nabad ku helaan oo ay horumar ku helaan waxaan leeyahay marka xaaladda meeshaas taala waxana odayaasha dhaqanka ee labada dhinac bay u baahan tahay waxana labada maamul bay u baahan tahay ee meesha ka jira waxaan leeyahay marka roolka odayaasha dhaqanka ay ku leeyihiin labada dhinac inaysan cidna marti uga noqon hawshaas ay galaan kuna dadaalaan sidii shacbiyadooda oo qabaa'ilka ay odayaasha u yihiin ay nabad ugu soo dabaali lahaayeen carab iyo labadii daanba isugu dhow iyaguna way isqabtaan in arinta nabadda ay ka shaqeeyaan oo ay ku dadaalaan ayaan rajaynaynaa dhinacyada labada maamul waxaan leenahay xilka kaga aadan oo kaga toomoon inay qaataan arintaas arin mindi ku taag u baahan ma arin in shakhsiyaad iyagu isku fiirsadaan u baahan ma in loo noxo waxaan rajaynayaa maxasta haweenka caruurta waayeelka aan wax dhibaato ah oo haba yaraatay ay galabsadeen aanay jirin in loo turaano doonaynaa waxaan rajaynayaa nabad ayaa wax lagu noqdaa colaad cidna danu ma cidna masaaliixu ma haatana waxa jooga mas'uuliyiintii Soomaaliya oo dhan marka laga reebo madaxweynihii oo isagu muftaaxi ah waxaan rajaynayaa in madaxweynuhuna kala qayb galo mas'uuliyiintaas halka isugu tagtay arinta in laga saaro marka qof jeclaysi in laga saaro koox jeclaysi in laga saaro arrimo siyaasadeed oo loo daayo arintaasi waxa weeye dadka qabaa'ilka ee meesha degan sidii ay nabad ugu wada noolaan lahaayeen sidii daris wanaag ay u ahaan lahaayeen muddo dheer bay ku noolaayeen daris wanaag wax dhibaato iyo wax caqabada oo hor leedna ma jirto waxaan rajaynayaa in madaxweynaha federaalkuna uu tagi doono halka oo goobta tagi doono oo ka qayb qaadan doono deeminta colaada deegaanada annaga ka Jubbaland ahaan intii hawshaas gali lahayd way naga soo tagtay goobtay joogan madaxweynihii Jubbaland baa hogaaminaya waxaan leenahay uma tagin inay dab huriyaan waxay u tageen inay ka qayb qaataan nabadda